tan iyo doorashadii ka dhacday wadanka Tanzania waxaa si rasmi ah markii ugu horeysay kaga hadlay doorashadii dalkaasi ka dhacday madaxweynaha wadanka Tanzania John Magufuli isagoo oo la sheegay in doorashadii la soo dhaafay wax ka badan 84% uu ku guuleystay sida uu ku dhawaaqay guddiga doorashada ee wadanka Tanzania laakiin waxa jirtay in gabi ahaanba ay qaadaceen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda in mar kale uu doorashada u tartamo madaxweynaha wadanka Tanzania John Magufuli markii ugu horeysay ayuu Magufuli ka hadlay doorashadii la sheegay in isagu ku guuleystay waxaana uu sheegay in doorashadii uu ku guuleystay ahayd mid xur iyo xalaal ah isla markaana mucaaradka ay rabsho kicinayaan waxa uu sheegay in markaasi Tanzania ay tahay dal dimuqraadi ah isla markaana aanay la ogoleyn in doorashada lagu shubto ama codadka xoog lagu kala qaato John Magufuli oo kamid ah madaxda Afrikaanka kuwooda ugu mayalaya ku andacoonaya in doorashadii dalkan ka dhacday bishii aan soo dhaafnay markaasi ahayd mid xur iyo xalaal ah isaga oo mucaaradkan ugu baaqay in ay isdajiyaan maadaama shacabku ay madaxweyne doorteen isla markaana ay sugaan fursad kale oo ay guusha ku qaadaan haddii kale Mr Magufuli waxa uu sheegay in dalka Tanzania aanay u furnayn albaab dhinaca rabshada ah isagoo ugu baaqay mucaaradka iyo dadka kale ka aragtida duwan in maadaama doorashadii ay dhamaatay hadda shacabku ay gacanta isqabsadaan qaar kamid ah mucaaradka ayaa hadda habsi guri ku jira sida ay wararku sheegayaan militariga iyo booliiska dalkaasna waxa gabi ahaanba heegan laga geliyay guud ahaan wadanka dhawaantan waxaa jirtay in mid ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn ugu soo horjeeda madaxweyne Magufuli lagu qabtay xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Tanzania isaga oo dib looga celiyay dalkiisa Tanzania ilaa iyo hadda madaxweynuhu ma sheegin qaabka iyo sida uu la tacaamulayo dadka siyaasiyiinta ah ee aanay weli aqoonsan in doorashadii dalkaasi ka dhacday isaga uu ku guuleystay waxa ay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo guud ahaan caalamka ay ku baaqayaan in doorashada wadanka Tanzania mar kale dib loo eego haddii natiijada ay noqoto mid rasmi ah isla markaana lagu qanci karo mucaaradka markaas iyaguna ay dibadbaxyaasha iyo waxa ay ku baaqayaan ay joojiyaan Tanzania oo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayeen dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda madaxweynaha ayaa hadda hadalka madaxweynaha waxa uu imaanaya xilli markaasi dadka shacabka u dhashay wadanka Tanzania ay walaac weyn ay qabaan inta badan doorashooyinka ka dhaca qaaradda Afrika ayay mucaaradka si weyn uga cawanayaan si weyn uga cabanayaan mucaaradka iyaga oo mucaaradka markaasi ku eedeynaya madaxda talada hays inta badan wadamada Afrika kursi jecel iyo in aanay diyaar u ahayn in markaasi cadaalad lagu kala baxo John Magufuli waxa uu sheegay in Tanzania uu markaasi si wanaagsanaan doonto isaga oo ku faanay in dalkiisu horumar xoog leh hadda uu ka soconayo mucaaradka waxa ugu baaqay in doorashada maadaama laga guuleystay ay noqdaan markaasi mucaarad wax dhisa ee aanay dalka dumin fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno